waa tahay soo dhawaada daawadayaal war degdeg ah dagaal xooggan oo ka socda qaybo ka mid ah gobolka Shabeellaha Dhexe kooxda argagixisada ahayd oo cashir halkaasi loogu dhigay xilli gurmud xooggan oo halkaasi gaaray muuqaalkan ayaan idinku wadaagi doonaa wararkii ugu dambeeyay dagaalkaasi oo ku dhawaad saacad halkaasi ka socdo muuqaalkan ayaan idinku wadaagi doonaa balse marka hore waxaan ka codsanayaa inaad YouTube-ka subscribe saarato sidoo kalena gambaleelka aad furato si aad u hesho wararka iyo warbixinada aan halkaani ku baahino laagtuna waxay naga caawinaysaa in muuqaalka uu dad badan gaaro mahadsanideen waa tahay wararka ka imaanaya gobolka Shabeellaha Dhexe gaar ahaan deegaan hoostaga degmada Raagaceele ee gobolkaasi ayaa wararku waxay sheegayaan in dagaal xooggan oo u dhaxeeya ciidamada deegaanka ay xaquudirirka macawisleyda ee gobolka Shabeellaha Dhexe iyo sidoo kale kooxda argagixisada Al-Shabaab dagaal xooggan halkaasi uu ku dhaxmarayo dagaalkan ayaa yimid kadib markii kooxda argagixisada Al-Shabaab ee weerar gaadma ay ku soo qaadeen ciidan deegaan oo halkaasi ku sugnaa waxaana dagaalka ka hortagay oo jilbaha u dhigtay ciidanka deegaanka ee halkaasi ku sugan sidoo kale sidaan xogta ku helnay dagaalkan waxaa soo qaaday kooxda argagixisada Al-Shabaab waxa uu socdaa ku dhawaad saacad deegaankana waxa uu hoostagaa degmada Raagaceele ee gobolka Shabeellaha Dhexe sidoo kale ciidamo gurmad ah oo ka tirsan kuwa xoogga dalka ayaa gaaray deegaankaasi waxayna garab buuxa siiyeen ciidamada xaquudirirka macawisleyda gobolka Shabeellaha Dhexe kuwaas oo cashir lixaad la u dhigay kooxda argagixisada Al-Shabaab firxadka kooxda ayaa weli lagu baacsanayaa qaybo ka mid ah gobolka Shabeellaha Dhexe kooxda argagixisada Al-Shabaab ayaa maalmihii ugu dambeeyay gobolkaasi waxay ka wadeen deegaano ka tirsan dhaqdhaqaaqyo xooggan iyagoona la filayay inay soo qaadaan weeraro noocan oo kala ah waxaana ka hortagay ciidamada xoogga dalka iyo sidoo kale kuwa dadka deegaanka oo isku dhinac ah daryanka rasaasta culus ayaa la isku adeegsanayaan dagaalkan waxaana jab culus lagu gaarsiiyay kooxda argagixisada Al-Shabaab ee weerarka soo qaaday saraakiil ka tirsan macawisleyda deegaanka ee gobolka Shabeellaha Dhexe aan la xiriirnay ayaa sidoo kale waxay inoo xaqiijiyeen in kooxda firxadka ah ay weli baacsanayaan isla markaana ay ka hortageen weerar halis ah ee kooxda argagixisada Al-Shabaab ee ku soo qaaday deegaankan hoostaga degmada Raagaceele ee gobolka Shabeellaha Dhexe kooxda argagixisada Al-Shabaab ayaa inta badan lagu yiqiinay inay soo qaado weeraro gaadma balse maanta kooxda argagixisada Al-Shabaab halkaasi cashir xooggan ayaa loogu dhigay sida ay noo xaqiijiyeen saraakiil ka tirsan ciidanka deegaanka ee halkaasi ku sugan ciidamada xoogga dalka gaar ahaan kuwa gorgor oo halkaasi gaaray ayaana garab siiyay ciidamada deegaanka ay halkaasi ku sugan isla markaana dagaalka xooggan la galay kooxda argagixisada Al-Shabaab ee ku soo duushay deegaan hoostaga degmada Raagaceele ee gobolka Shabeellaha Dhexe kooxda argagixisada Al-Shabaab maalmihii ugu dambeeyay waxay wajahayeen culays xooggan oo kaga imaanaya dhanka duqeymaha cirka iyo sidoo kale dagaalo toos ah oo ay la galayeen ciidamada xoogga dalka iyo sidoo kale kuwa dadka deegaanka oo isku dhinac ah muuqaalo lagu baahiyay baraha bulshada ayaa sidoo kale waxay muujinayeen kooxda argagixisada Al-Shabaab oo la cararaya dhaawacyadooda iyo sidoo kale iyagoo qaadaya meedadka oo doogayaasha iyo sidoo kale dagaalyahanada ka tirsan kooxda argagixisada Al-Shabaab ee lagu laayay dagaalka ay kula jirto dowladda federaalka Soomaaliya ayaana adkeysay dagaalka ka dhanka ah kooxda argagixisada Al-Shabaab iyadoo qaybo ka mid ah gobolada Hiiraan iyo Shabeellada Dhexe kooxda argagixisada Al-Shabaab loogu dhigay cashir xooggan iyadoona ay qayb ka yihiin howlgalka duufaanta oo aamusan kaas oo jab culus lagu gaarsiiyay kooxda argagixisada Al-Shabaab waxaana loogu qaarijiyay dagaalyahanadii ugu badnaa iyo sidoo kale hordoogayaal ka tirsan kooxda argagixisada Al-Shabaab oo lagu qaarijiyay howlgal duqeyn ah oo ka dhacay qaybo ka mid ah gobolada Hiiraan iyo Shabeellada Dhexe daawade haddii aad soo gaartay dhamaadka muuqaalka waxaan ka codsanayaa inaad YouTube-ka subscribe ay noo saarto sidoo kalena gambaleelka aad furato si aad u hesho wararka iyo warbixinada aan halkaani ku baahino mahadsanideen